inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dhacdo argagax badan ayaa maanta ka dhacday deegaanada Puntland 6 askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Puntland ayay hal meel miina kula kacday oo hal meel ku geeriyooday 6daasi askari waxay ka tirsanayeen ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Puntland howlgalka ciribtirka kooxda khawaarijta gobolkoodu dhacay ee guurleyda gobolka bari laga sifaynayo ayayna ciidanku ku jireen miino ay aaseen kooxdii khawaarijta ahayd ayaana la kacday ciidankaasi kooxdan sida wada ogsoontihiinba awooday ku dagaalamaan male waa inay miino aasaan oo dad shacaba iyo ciidan ay ku waxyeeleeyaan iyo inay daroon intay qaraxyo ku soo xidhaan ay meel ku qarxiyaan iyo inay mid waalan intay wax ku soo xidhaan ay dhahan jannad galaysaa annaga ku kafala qaadanay orod ay dhahan oo isku qarxay ciidanka ay dhahan dagaal foolka fool gali maayaan ma geli karaan hadda buuraleyda gobolka bari dhacdooyin baa laga dawaan galiyay nimanku wayba cararayaanba ciidanka xagee soo jira dadka deegaanka halka ay soo marayaan waaba sii cararayaan 20 kilomitir markii loo soo jiray sii cararayaan godadka sii banaynayaan dagaal foolka fool ma geliyaanba inta badan deegaanada la qabtay waa deegaano ay sii carareen waa dul istaagi doonaa waana ka tacsiyeynaynaa dhacdadaasi argagaxa badan ee fulaynimada leh ee dhalinyaradaasi askarta ka tirsan lala beegsaday ee 6 askari ay ku geeriyoodeen qaabka ay wax u dhaceen waa dul istaagi doonaa xogii ugu dambeeyay howlgalka ciidamada Puntland buuraleyda gobolka bari iyo dagaaladii ugu dambeeyay guulaha taariikhiga ciidanku ay gaadheen halka la kala marayo iyadana waa dul istaagi doonaa dhinaca kaleeto Puntland iyo Galmudug ayaa go'aan ka gaadhay dhacdadii foosho xumayd ee ka dhacday degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug habeen ka hor dhacdada run ahaantii dhacdo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka xumaatay bay ahayd kuwa fidmad wadayaal ah ayaa magaalada dagaal ka riday oo rasaas ku furay waxa weeye fidmad wadana dadka ma matalo dhacdadaasi marka halka ka dhacday si aysan u soo noqonin kuwii dhibaatada geystayna gacan bira loogu qabto ayay Puntland iyo Galmudug go'aan adag ka qaateen oo ay ka gaadheen ciidamo isku dhafa ayaana arrintaasi loo saaro si wada jir ah deegaankaasi looga howlgeliyay iyadana waa dul istaagi doonaa iyadoo waliba dhinaca kaleetana odayaal fidmawadayaasha taageersan ay warbaahinta la hadleeyeen oo waliba dhinaca Saciid Cabdullaahi Dani ay eedo u jeedinayeen oo lahaayeen waana lagu soo duulay daarood baan lagu soo duulay Puntland baan lagu soo duulay hadallo xanaf laho hurin colaadeeda ay baraha bulshada marinayeen waliba dhinaca kale waxba yana afka kala laadine dhinaca kale tag Galmudug odayaasha ka soo jeeda ayaa arrintaasi maalmihii ugu dambeeyay qaada dhigayo wadwaday iyadana fariin baan u reebaynaa haddii alla idmo sida waxa lagu heshiiyay howlgalkaasna iyadana mid iyo laba ayaan ka dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay horta marka koowaad waan ka tacsiyeynaynaa dhacdada argagaxa badan ee maanta dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun jannatul firdaws allaha geeyo dambigooda allaha dhaafo ehladii ay ka tageen sabir iyo iimaan allaha ka siiyo dhammaanteen sabir iyo iimaan allaha inaga siiyo dhalinyaro mujaahidiina oo waxa weeye halgan ugu jiray sidii ay dalkooda u xoreyn lahaayeen uga ciribtiri lahaayeen ajaanibta iyo cadowga ku soo duulay dhulka Soomaaliyeed ayay kooxdii fulayinta ahayd ee argagixisada ahayd ee Daacish ay u dhigeen qarax qoladan sida wada ogsoontiin argagixisadu dagaal toos ma galaan caadadoodu waxa weeye inay wax gaadaan kaliyo inay ama qarax meel ku xawaalaan ama ay ku waaran ku soo xidhaan ama ay gaari wax ka soo buuxiyaan waa inta iyadu dagaal toos ma gali karaan dagaaladan hadda Puntland ay ku qaaday buuraleyda gobolka bari ayaa si fiican la iskugu bartay 20 kilomitir iyadoo loo soo waliba loo soo gaarin bay si cararayaan oo ka sii baxayaan godadku ay sii banaynayaan marka qolo wax iska celisa maaha waa qolo inay ummadan dhibaateeyaan oo lacagaha ka urursadaan oo dhaqaale ka sameystaan meesha u imaadeen qolo hadaf leh oo hadaf ay ku dagaalamaan haysta maaha si kastaba dagaaladii buuraleyda gobolka bari waa socdaan dhalinyaradaasna maanta waa dhacdo argagax badan run ahaantii miino markii intay cararayeen ay dhaheen ciidanka iskaga reeba baad gaari ay saarnaayeen dhalinyarada la kacday 6 askari ayaa ku geeriyootay baa leeyay sida ay wararka hoose wararka naga soo gaaray deegaanadaas ay sheegayaan kulleeyda 6 askari gacan ka xaq daran baa disho waa shahiide jannatul firdaws allaha geeyo wala dhibani rag waxa way dadku wax noolaanaya male qof walba taariikhdiisa qof dhaafayana ma jiro waa la dhibanaya
waxaa ugu fiican ninka isagoo dhulkiisa iyo dadkiisa iyo sharafkiisa iyo diintiisa difaacanaya oo cadow ka difaacanaya dhintaa ugu fiican dee ninka waa shahiid wey marka kooxdan khawaarijta buuraleyda gobolka bari ee cadowga suuriyaanka iyo sacuudiyaanka iyo imaaraadka iyo afghanistaanka iyo balaada iyo waxa wey latin america iyo xabashida iyo iskugu imaatay meesha ee dhaqaalaha dadka ay ka urureen halka ku qaybsanaya dee waxay doonaan ba ha sameeyaan waxay doonaan ba ha qarax ma ay meel dhigeen iyo dad ay gaadeenna marna ummadda soomaaliyeed kama mashquulinayso oo waxa weye kuma cabsi gelin karaan in dhulkooda iyo diintooda iyo dadkooda ay ilaashadaan iyagu waxay leeyihiin waxyeeleeya oo cabsi geliya bay leeyihiin laakiin cabsi gelin mayso dhalinyaradana waa ka tacsiyeynaynaa sabir iyo iimaan ayaan markale leenahay eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba dhinaca kaleeto howlgalka horta waa socdaa si habsami leh oo aad iyo aad weliba u habsami leh ayuu horta howlgalka u socdaa ciidanka daraawiishta maamul goboleedka puntland subax walba meeshii lagu sheego umbaa loo kala hayaa arbaaqadha laga gelina shalay sidaa wada ogsooneydeenba ilaa iyo 4 saldhig baa gacanta lagu dhigay oo kooxda laga qabtay maantana howlgalka weli waa sii socdaa walow hadda ilaa iyo hadda waqti xaadirkan oo dee casara wax dagaaloo hadda socdo oo meel hebel buu ka socdaa la yidhi aan naloo soo sheegin laakiin howlgalladii shalay oo aad u ballaarnaa ayaa kooxda jab weyn la gaarsiiyey ajaanib badan baa halkaa lagu dilay dhul badan baa laga qabtay farxadkooda waxa weeye gabalka ugu dhacay say ciidanku ugu sii daba jireen howlgalkuna waa socdaa buuraleydan hadda calmiskaad iyo sidoo kaleeto calmadow horta dhulkan waa dhul ilaahay waa dhul aad u ballaaran weeye dhul ciyaara maaha waana dhul golla waxaa laga yaabaa inay isweydiinayso war howlgalka buurihii waa la qabtay baa leeyahay muxuu usoo dhammaan laaya dee muxuu soo dhammaanaya dhulku waa dhul weyn dhulku waa dhowr 100 kilomitr 500 kilomitr oo square ama 1,000 kilomitr oo square goormaa laga baxaya haddana dhulku waa buuro waa gollo waa togag waxaa laga yaabaa ciidanku howlgalkan maanta ay qaadaan inaysan 30 kilomitrba aysan dhaafin oo dee waxa weeye dhulku waa dhul cimilo waa dhul waxa weeye wadooyinkiisuna ay iska xun yihiin kooxdana dee meelba meeshay ka waxa weye duursanayd bay galeen meel walba meeshay ka golsanayd bay ku dhaadhaceen oo ay ku dhumaalaysanayaan godadkii inta badan laga soo qabay dhulkii inta badan ay joogeen laga soo qabay laakiin weli deegaanay ku harsan yihiin oo ciidanku weli howlgalkii ay ka wadaan oo la rabaa in laga ciribtiro oo laga sifeeyo marka waa socdaa guulo waaweyn baa la gaadhay welina farakamo qodna oo deegaanay weli ku harsan waxaan rajaynaynaa oo ilaahay idamkii ka rajaynaynaa in ciidankoo nabadgelyo ah oo waxa weeye aan dhibaatiya khasaare badan toona soo gaadhin in deegaanada laga xoreeyo kooxda gebi ahaanba cagta la mariya ayaa ilaahay ka rajaynaynaa dhinaca kaleeto puntland iyo galmudug ayaa go-aan ka gaadhay dhacdadii foosha xumayd ee habeen ka hor ka dhacday magaalada gaalkacayo dhacdo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay aad uga xumaatay bay ahayd magaalada gaalkacayo magaalo iska degan waayihii ugu dambeeyo xaalkeedu degan yahay bay ahayd magaalo la wada degan yahoo lagu wada nool yahay bulsho badanna ay ku nooshahay bay ahayd magaalo waxay ahayd run ahaantii ganacsigeeda iyo horumarkeedaba uu aad u kordhayo xawaaro uu ku socdo ayay ahayd sanadihii ugu dambeeyey kadib markii puntland iyo galmudug ay heshiis halkaa ku gaadheen oo labada madaxweyne weliba ay gaalkacaya iskugu tageen heshiiskii marka halkaa lagu gaadhay ee xasiloonida iyo amniga lagu helay ee magaaladu waxa weye isdhexgalkii bulshada iyo ganacsigu uu ku ficaaday qolo fidma wadayaal ah oo dagaalada baadiyaha ka socdo ka soo xarootay baa un dagaal meesha ka furtay dagaaltay meesha hadday ka fureen magaaladii habeenkii waa kii la qaxay oo waxa weeye walaa xoog laga muujiyey dhimasho iyo dhaawacba sababtay ee dadku ay magaalada ka qaxeen labada maamul marka durba go-aan baa la gaadhay labada ciidanba magaalada ayay amni ku soo rogeen oo kooxdii ayaa banaanka looga saaray haddana mas-uuliyiinta labada maamul ciidan isku dhafa ayaa la sameeyey oo gobolka mudug ka wada howlgala sidaa wada ogsoontihiinba goboladan mudug gobolka la leeyahay waa laba gobol dhinaca puntland iyo dhinacan waxa weye somaliland labadaba waa waxa weye mudug bay leeyihin marka mudugtay gaalkacayo waa magaalada marka magaalo madaxdoodii weeye waana magaalada kala qaybisa weeye oo labada dhinac bay kala qaybisaa oo tog yarbaa meel yarbaa u dhaxayso waxa weeye marin oo labada ciidan ay waxa weye ay kala fadhiyaan marka waxaa la isla gaadhay in magaalada gaalkacayo aysan mar dambe xaaladii habeen dhaweyd dhacday oo kale aysan kusoo laabanin oo kooxahan baadiyaha isku eryanaya
hadday baadiye isku eriyeen iyo hadday heshiinayaanba inaysan saamayn ku yeelanin magaalada oo mar dambe aysan xabad qash ka dhihin ciidan marka isku dhafaa la sameeyey oo gobolka ka wada howlgala waana la howlgeliyo waxaa la ciidanku howlgala argagixisada nabaddiidka dhalinyarada waxa weeye fidmo wadayaasha waxaasoo dhan la dagaalama baa leeyahy kuwii habeen dhawey dagaalka meesha ka ridayna soo qaqabta baa leeyahy labada dhinacba keena baa leeyahy si maxkamad loo horgeeyo go-aankaas baa marka la wada qaatay waa go-aan gobonimo leh oo guul ah oo aad iyo aad guul weyn u ah weeye odayaasha anugu talan ku darsan laha waxaan dhihi lahaa odayaal waxaa jiray warbaahinta la hadlay oo saciid dani baa wax yeelay ciidan baa puntland soo dirtay puntland baa meesha ciidan keentay saciid dani wuxuu yidhi gobolka mudug amnigiisaanuu iga go-aa babababaa lahaa kuwaa naftirkooda hala soo qabto ilaa dhalinyaradan odayaal baa dhalinyaradan dabada ka riixaya odayaasha dhalinyarada dabada ka riixaya iyagana waxaan ku talin lahaa oon madaxda kula talin lahaa ha la soo qabto odayaasha waa in la keeno oo waxa weeye lahor keeno sharciga lahor keenaan dhihi lahaa waynu eegi doonaa daawadayaal xaaladdu hadda way degan tahay magaalada gaalkacyo wixii kasoo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla idmo